نص قادنيسا مر بين نص قادنيسا مرنا واحد الانثيين مرنا ثلثين اشترك كتاي او كشر كوبيسا وروحا waa qayb ilaahay qaybiye oo xikmad iyo cilmi iyo aqoon allahi abuuray uu ku qaybiye ka daaya la yiri maya culimadii 10 baa la dilay subaxda la dilayo dadka waxa lagu qaadi jiray qofkii la dilayo sida nimankii xataa kacaanka kamid ahaayo la laayay waagaas qofka la dilayo dhalinyarada hadda soo gaartay ma gaarine kacaanku hees buu ku qaadi jiray hees baa lagu sagootin jiray samadiidow dabin baa ku qora lagu daldali doono miyaad mesela lagu dabi doono ha heestaas hadaad ka dhageysato oo aad maqasho idaacada radio muqdisho maanta aad ka maqasho macnaheedu waxaad ogaanaysaa maanta dad baa la daldalaya ciiday tayba maanta samadiidow dabin baa ku daban ama ku qoran lagu dabi doono marka maanta waxba qoran anigu markaas waa bishii February ayaan filayaa 1975kii waa markaan ololaha ka soo noqonaynay ololihii reer miyiga farbarida afska Soomaaliga oo anigu jawhar baadiyeeda magaalada Doomcadi la yaatuulo Doomcadi la yiraahdo dhanka galbeed ka xigta magaalada jawhar ayaan joogay muddada sanadka 1974 ila 75 ka bilowgiisii magaalada jawhar baan imi markaas makhaayad anoo wax ka cunaya ina yar baan ahay markaa 16 jir meelaha 15 jir iyo xogaa 16 jir baan ahay ayaan makhaayad wax ka cunayo ayaa heesta lagu dhiftay darag warkii bay ku soo gashay mase maanta waxa la dilay culimadaas 10ka atiirka la geeyay waa la dilay isla maalintii saad ogtihiin laba diyaaradood oo kacaysay oo diyaaradaha militariga ee miiga ah xaafada waa beri ayay ku soo dul dhacday inta u dhaxaysa dabka iyo dhanka jidka waa beri ilaa iyo sayidka meesha taaladiisu ahayd sokadeeda ka sokaysa halkaas waa beri buurka intaasay labadii diyaaradood mid ku dhacday guryo badan iyo dad badan ayay la tagtay mid kalena badda ay ku dhacdaan filaya labada diyaaradood isku dhaceen roob aad moodo oohin inuu yahay baa la yiraahdaa